xubnaha culimada diinka dalka waxay si qoto dheer ugu iftiimiyeen shirkoodaasi jaraa'id qiimaha culus ee nabadgelyadu ugu fadhido qaranka Soomaaliland iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in qayb kasta oo kamid ah bulshada si xilkasnimo ah ugu gudato waajibaadka ka saaran sibay yiraahdeen doorashadu aynu haatan gudagalina ugu qabsanto si hufan oo nabadgelya waxaana ugu baaqeen dhinacyada ay taabanayso mas'uuliyadda hawshaasi inay sideeda uga soo baxaan haddii noqoto axsaabta ku tartangelaysa doorashada bulshada iyo xukuumadda iyagoo si gaar ah ugu soo jeediyay axsaabta inay ka fogaadaan ficilada xanafta leh ee wiiqaya amniga waxaynu gelaynaa waqti doorashadaasina xumad bay leedahay kaliya wax walba inay lama taabtaan ka noqoto nabadgelyada iyo diinteena islaamka inaynu ilaalino cidda koowaad ee siiriga u haysa waa komishinka in dadweynuhu komishinka ay la shaqeeyaan oo xisbiga ka talaabsada qawaaniinta iyo aadaabta loo dhigay dadweynuhu ay kula shaqeeyaan oo xigmadda koowaad ee aanu u qabanay ismaatinkan culimadu baaqa ay u gudbinayso siyaasiyiinta iyo dadweynaha iyo komishinkaba wuxuu daaran yahay dadweynuhu kow cidda lagu tartamaya waa iyaga dhammaanna doon baynu wada saaranahay suu nabigeenu cadeeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh oo nabigu wuxuu ku mithaaliyey khalqigaba in doon saaran haddii doontaa saddexda dabaqa qolada ugu saraysa ay damcaan doontiiba inay gunta ka dalooliyaan waxaa waajiba dhammaan intii kale inay gacanta ka qabtaan haddii haddaba gacanta laga qabto ciddii doontan la saaran yahay daloolin lahayd waa la wada nabadgelaya haddii ninba wuxuu doono sameeyana dee baashii waa la isla degayaa markaa awalan gacanta dadweynaha ayuu amnigu ku jiraa gacanta dadweynaha ayuu ciday dooranayaan ku jirtaa markaa dadweynaha waxaan leenahay danteena koowaad waxa weeye nabadgelyada madaxda tartamaysa ee xisbiyadana waxaanu leenahay dadkiina marka aad taageerayaashina la hadlaysaan ugu dara in aanay wax shareecada ka hor imanaya samaynin walaalayaal sida la wada og yahay waxaynu hana qaaday oo muddo dheer aynu ku naaloonay nabadgelyada oo geeska Afrika wax inala qabaa aanu jirin waxa laga maarmaana doorashada dhacaysa dhammaan ragga musharaxiintii way namadeeni weeyaan dad meel kale inaga yimi ma aha qof walibana codkiisa xor buu yahay cidii uu siinayo iyo cidii uu codeynayo hase haatee waxa loo baahan yahay si nabadgelyo oo sharafi ku jirto oo aan cayl ahayn oo isxagxagasho lahayn in la isugu codeeyo oo la isku doorto